haddana ma aqbalayo 10 sano wixii aan u dagaalamayay inaan maanta kaga aamuso fiimaa Soomaaliland wax ka soo baxdo ma doonayo anigu meesha inay isugu baxdo kooriya inaan qambiyo farato ka weyn dadkan magacaygu waa fiimaa Fuuche waxaan ahay gabar ka soo jeeda soo sanaagiyayn deegaan ahaan waxaan ahay gabar dhulbaanta intiina badan wadi garanaysaan labada nin ee Soomaaliland ku hirdintamaya ee la isku dhangadeynaya aniga labadu waa qoyskaygi Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer aniga waa awowgay Cabdirasaaq Khaliif Axmed Doodar waa aabahay adeerkii anigana waa awowgay waa Yaasiin Maxamuud Xeer Faarax iyo Cabdirasaaq Khaliif Axmed Duulal Faarax haybahan odayga afraad ayaa la isugu imanaya inta isugu fog faratoon Cabdirasaaq wuxuu yahay adeer labaad qaadan maayo oo marxaati ka ahaan maayo halka reer Faarax lagu kala ambixiyay ay marti ku kala tageen ee meelkii ku kala tageen ee aan salaanta la iska qaadeen inaan goobjoog ka ahaado Yaasiin waa awowgay afkaygu ma jecli ereydeel qaaf ayuu ka soo baxo oo Yaasiin ku seeyo laakiin waxaan sheegayaa oo cadeynayaa awowgay kursiga sideed reer Faarax deera oo odayga afraad Yaasiin Maxamuud Xeer Faarax saadkiisa ku qoran ku yahay isugu keen waayay 82 iyo Soomaaliland iyo SSC toona walaa ugu matali karin billi ana idin sheegaya waxaan uga socdaa oo dibicda hadalkayga u dhacayay ay tahay Cabdirasaaq Khaliif 2010 buusan xadda siyaasadda ku soo biiray Cabdirasaaq Khaliif 5 sano iyo dhowr kaabilood uu wasiirka ahaa meel qof Soomaaliyeed aflagaad uga tagtay meel qof hartiya aflagaad uga tagtay meel qof dhulbaanta uu ku aflagaadeeyay meel erey deel qaaf oo dhulbaanta ka kala kaxaynaya uu ku yiri hadii la soo helo أنا بتراسلينيا أنت أنا عيد الجنورية كهد ياسين بكامدني عبدالرزاق وعلى يقان وأنا أفكابا وأنا نربحان توكل صبحي سيد كبار ليدي مركز غيرها لو يدي وحول نربحان تنكولا معناها لكم جالسة هذا الأركتان لو قد بندين تابنيا نربحان تحت حاجنا يو أو حنيها هيو أو لقد هذا الأركتان ونكوي كتيرة على خليفة بسوي عتابي ولها والكداية ما أنتوا بتاعي سووا قريين والبجاس بقى تجي كان في غفق ودمركوا بنتو إلك اللي جاي قيمه سكرتان عبدالرزاق خليف أحمد أهل الشرف مسؤول جراد سياسي نكم بدن وديجانا أول حكي عنا بدن ببتشرها بيراتين هذا رزاقه عن شرفين كدكتين ومد إلى هاي ود الصومالي ونبني أكسنك على ما أنتنا تعيشنا وهين ياسين دنتنا كده حكيسان إن المسؤولين السنة قد كلها وين بدركسان إن المد talada Soomaaliyeed lagu gorgortamayo oo lagu gorfaynayo aan ka hadli karin oo deegaanadiisa daba u metel karin baad ka dhaxaragtaan inuu faratoon Soomaaliyeednimada diin u arko oo dadkiisa beenay xaq ku leeyihiin oo dulman yihiin aan ogeyn ayaad ka dhaxaragtaan horta taana idin cadeynaya haddaan leeyihiin faratoon Cabdirasaaq waa iscasilay oo wuxuu sameeyay dawladdu inqilaabay Cabdirasaaq Silaayo ma inqilaabin Cabdirasaaq muuse iska celinay uu iska celin doonaa in kiraay uu ka adkaanaya laba kun iyo 17 si xaraga lagu soo lagu adkaaday isbahaysiga ninkii ka adkaaday buu ahaa maantana waxa la mahadiisay in muddo 2 bilood qaaqda la hayo isaga iyo heego iyo maryaal walba inta halka la soo istaagay Cabdirasaaq la loodin laayahay horta intaas wax loo dhigaaba aan jirin anu Cabdirasaaq u baqan maayin muuse ka adkaan waaye ma meesha waxa ku tartamayana waa muuse handaraab iyo Cabdirasaaq horta dalka sala isugu hayo ee loogu tartamaya waa taa hadal dhamaantii haddii la isaga dhigayo wasiir baa ka tagay xil qaran sagoo muuse diidan eed faratoon basagoo wasiir qaran Ingiriiska inaga aaday dibna uu soo noqonine de labadooda in Ingiriisku ku dhuuntay oo baasaboor buu dantii qaranka sheegaysan uu idin hayay ka doortay oo uu raacay ninna muuse diido yiri maya waan diiday anigu handaraab raaci maayo kuwa badan baan arkayaa igu dhaliilaya fahimay Soomaaliland waad ka timiyay maxaad u falanqaynaysaa siyaasadeeda ilmaade reer waan falanqaynaya waan falaqayn doonaa Soomaaliland dhul iyo dad iyo deegaan baa iga jira dadka iyo deegaanka iyo dalka iga jira ma sadqayn oo sadqaw ma bixin masiirkooda hadii aan Puntland tagin iyo hadii aan federaal tago iyo hadii aan Jubbaland tagaba waan ka hadlayaa waan idin cadeynayaa ay damac Soomaaliland iga jira oo aan ku doonayaa wallahi baan u jirin oo billahi baan u jirin oo tallaahi baan u jirin أنا كان هي برقة دقاقة يسكعسين أنا قول ديل عيد كل جلين أو ديل كوها يسني في ما وحسن نقول ساي كان كعالة هذا أنا ما أقبله يوم
toban sano wixii aan u dagaalamayay inaan maanta kaga aamuso fiimaa Soomaaliland wax ka soo baxay Soomaaliland ma rabo oo waan ka soo baxay oo fikirkeeda ma doonayo laakiin deegaankayga iyo dalkayga wixii dan u ah iyo wixii hagardaamo u ah waan kala tilmaamaya wataasina waa dan oo Soomaaliya sanaag iyo dadkii bay dan tahay taasina way nagu hagardaamo mar haddaan dhulbaanta meeshii ka maqnayn mar haddaan harti waqooyi ka maqnaanay Soomaaliland tiro yar ama ha badnaato ama ha yaraatee meeshii lagu jiro waxaan doonayaa inaan yeesmaan meesha naga joogine nin dadka xaqooda u soo dhicin karaya oo haddii uu dadka matalayo magac ahaan sheeganayo matalaad qurux badan midida daabkeeda la qabsanaya raggan oo kursiga inta uu yahay ku ilaalinaya dadka iskale waxna ugu qabanayo lagana hamranayo oo deegaan ahaan iyo dad ahaanba looga hamranayo inuu tagaan doonaya ma doonayo anigu meesha inay isugu baxdo koori ina qambiyo faratoon ka weyn dadkan